Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaheyga waan idin salaamay adduunka meel walbaad ka joogtaan kusoo dhawaada channelkeena Muna Soom waa walaashiina Muna maanta axad ayay ii tahay howl qaran ayaa maanta hayaa maanta waxaa rabaa dharka caruurta inaan kala hagaajiyo wixii samarkii inaan usoo saaro wixii qaboobihii aan ka xareeyo ii sheeg wixii dharkii halaabay ama dharkii ka yaraadan insha Allah inaan kala sooco ayaa rabaa marka aniga aan kala soocayo saddex qaybood ayaan u kala sameeyaa funaanadaha iyo sarwaalada xanaanadaha lagu dhigto waa gooni birarkaas ayaana geliyaa sababtaan u geliyan waxaa waaye inaan subaxii ii fududaato oo sheygii aan arki kara ayaan rabaa dharka markay laalaaban yihiin ama is dul saaran yihiin waxaa laga yaabaa shay hoos oo kalaa inaad subaxii aad u baahan tahay inaad la soo baxdid ama si fiican aadan u arkin ama dharkii oo kala dhaqsi inuu markaas oo kaa halaabo sidaas darteeda dharka libiska oo dhan oo xanaanada lagu aado birarkaas ayaan surinayaa kadib waxaa ii soo haray dharka dharka bijaamaha waa laalaabaa siday isku leeyihiin ayaan isdul saaraa qaanada ayaan gelinayaa sidoo kaleeto dharka guriga lagu joogo oo iska caadiga oo maalin joog ah ayagana sidoo kaleeto waa laalaabaa laakiin dharka xanaanada lagu aadayo aad iyo aad ayay muhiim ii tahay in subaxii aan arki karo maadaama orod iyo stress yar oo iska jiro sidaas darteeda ma laalaabo mana iga halaabaan oo yacni makaa jajabayiino saas ayay ku fiican yihiin birarka markii la gelinayo birarkana maasha Allah meel walba dukaan walba ayaa ka heli kartaan oo lagu gadaa marka funaanadaha iyo sarwaalada ayaa igu daran kuwaas yacni muhiim ii ah oo aan ulasha aan surtaa wixii hadda qaboobihii maadaama laga baxna loo baahnayna ayagana sidoo kale waan iska xareynayaa ma isticmaalayay baatiyadan iyadana guri joogo waaye waa laalaabaa marka sidaasi tekniikaas ayaan kuley aniga isticmaalaa waana ka helo waana ii fudud oo aanan ku arka yacni dharka inaysan iga halaabeynin dharkii aan laalaabo waxaa laga yaabaa bil kadib haddana inaan isku soo laabano maalin walbo weekend walbo dhar lama laalaabi karo hadda waa kana sarwaaladii oo wiilkayga ayaan usoo hagaajiyey halkan ayaan soo suray gabadha iyadana sidoo kaleeto qaanadeeda ayaan u surayaa funaanadihii ayaa ii dhiman funaanadihii ayagana sidaan oo kale ayaan soo sameyn doonaa insha Allah oo ulashaas yar yar ayaan soo gelinaa ulasha markii aan soo geliyo qaanada ayaan surayaa waa dharka iskuulka ama xanaanada markii la aadayo ay u baahan yihiin ay qaadanayaan qaanad kale ayaan haystaa oo qaanadaasna waxaan u dhigaa dharka guri jooga iyo bijaamaha ayaa igu jiro marka dharka hadda insha Allah waan usoo laaban doonaa wax yar bareeg ayaan ka qaadanayaa waa kana afurkeena ayaa jeclaysta maanta inaan idinla wadaago anoo sameynayo bacdaani waxaa ku jiro waxaa waaye burkii mandaazigii oo ii diyaarsan baraf waay saad u jeedaan sambuuska asigana sidoo kale barafkii ayaan kasoo bixiyey waad arkaysaan gabdho badan ayaa ila soo wadaaya oo i weydiiyey yacni sambuuska oo barafka maa dubtaa ma dubo banaanka ayaan soo dhigaa bac oo kale ayaan ku daboolaa waa sugaa ilaa uu barafka ka qaboobayo barafka ka dhacayo barafka markuu ka dhaco kadib ayaan dubayaa halkaani digaag iyo baradho iyo khudaar yar ayaan la soo baxay waxaan rabaa insha Allah inaan bariis yar aan boobsiiyo khudaartan ovenkan iska sii geliyo afurkii wax saas kama harin labadoo saac camal ayaa ka hartay marka 2 saac gudahooda barafkana sambuuska wuu iiga dhacaa hadda cabaar ayay banaanka yaalaan burka asigana sidoo kaleeto barafka markay ka dhacaan kadib ayaan burka inaan fidiyo isla markii waan ka dubaa wax khamiir oo u baahan yahay malahan already khamiirkiisa wuu wataa markii uu khamiire ayaan duuduubay marka hadda bariiska ayaan sii diyaarsanaynaa bariiskana marka digsiga ayaan insha Allah aan ku karin doonaa bariiska ka hor biyo ayaan lasii dhigayaa biyo markaan lasii dhigo waan sii qiyaasanaa alaab yar ayaa ii taalo oo aan raba kow horta inaan sii boobsiiyo jikada mar walba markaan soo galaan waxaan jeclaa iyadoo nadiif ah already alaab hadday ii taalo anigana jikadii soo galo alaabo kale aan sii waxeeyo waxay noqonaysaa ii sheeg jikada jaam ayay iga noqonaysaa marka ma jecli alaabta yar ayaa hadda iska sii boobsiinayaa ilmihii waxay ku quraacdeen iyo waxay ku qadeeyeen casridii oo dhan ayaa inta ii taalo marka ayagaa soo boobsiinaa alaabta markay jikada nadiif ay ii tahay kadib ayaan insha Allah bariiskayga sii dalacanayaa sababtaan u sameyn waxaa waaye bariiska digsi ayaan isticmaalaa digsigan wax badan aan kasoo hadlaan idinla soo wadaagay digsigaasna cuntada aad ku karisid ilaa 4 saac ayay cuntada yacni kuleel ay ku ahaanaysaa cunto qaboobaysa ma ahan marka sidaas darteeda waa iska sii karinayaa dharka ayaan rabaa kadib in aan u laabto oo dharka aan iska soo dhameeyo insha Allah oo bacdan afur hool inay ii taalo ma rabi inta yaroo lagu afuray
kaliya ayaan rabaa inaan iska sii raacsiiyo kadibna wax aqris ayaan rabaa insha Allah inaan u fadhiisto. Marka waa kana alaabtii aan soo dhameeyay wax yar aa ii harto waan iska soo nadiifinaya. Haddii kale waa lagu caajisaa alaab markay jikada maanta dhan kuu buuxdo especially aniga iima taalo makiinka oo wax lagu dhaqaayay marka wax walba gacanta ayaan ku dhaqaa. Waan jeclahay alaabta inaan iska sii fududeeyo ama jikada mar walba markaan soo galaayo in nadiif ay ii ahaato haddii kale alaabta ay ugu badanayo waan lagu caajisaa. Marka jikadii waan soo nadiifiyay waad arkaysaan alaabtii meelaan iska soo dhigay bariiska ayaan hadda u imaanaa bariiska ayaan dhaqaa. Bariiska markaan dhaqo kadib bariiska ayaan bilaabaa in aan soo dalaco bariiskan aad iyo aad ayuu muhiim u yahay in si fiican la iskaaga dhaqo. Baradhada iyo digaagana ovenka ayaan gelinaa ovenka markaan geliyo lambar gaaban ayaan ku shidaa. Lambar dheer kuma shidaayi tartiibteeda u karsamee baradhadii kaama halaabayso waqtigeeda iska qaadanaysa aad uma kululo. Digsigaan idiin sheegaya waa kana kan ayaan insha Allah isticmaali doonaa. Adiga bariiskani waxay ku karinaysaa wax 15 daqiiqo ka yar 15 daqiiqo kadib waxaan u geynayaa meel kale ayaa jirto oo la taabanayo ilaa 4 saacadood ayay cuntadii qandac ay ku ahaanaysaa. Saan idiin sheegana afurka hadda waxaa ka dhiman wax 2 saac ka yar. Marka saas darteed waan iska sii diyaarsanaa mana jecli ani runtii afurka oo wax yar ay ka dhimantoo kale jiko inaan ku daaho ama jiko aan sii taagnaado stress ayaan ka qaadaa marka waxaan jeclahay waqti fiican inaan iska soo dhameeyo oo howlo iyo wax kale aan iska qabsado insha Allah markaad waa kana basasha ayaan sugayaa wax yar ilaa ay ka jilcayso qudaarteeni kale ayaan ku shubanaynaa. Qudaarteen hadda barafka wayba ka dhacday heel iyo qarfo asigana insha Allah waan ku darsan doonaa saad u jeedaan xawaajiyada ayaan hadda ku darsanaa kadibna waxaa gab ku siin doonaa insha Allah qudaarteeni. Bariiska maasha Allah qudaar la'aan ma kariyo mar walbo oo faamiliga haddii anaga aan cuneyno waan ku daraa maadaama caruurtana aad iyo aad ay ugu fiican tahay annagana sidoo kaleeto waa la sooman yahay wax caloosha socodsiiyo waa loo baahan yahay. Bariiskayga ayaan hadda ku daraa wax yar ayaan isku walaaqaa biyo yar ayaan ku shubaa kadib maasha Allah bariiska waaba diyaarbo. Digsiga ayaa inta kale hawsha kala qabanayso anigana dharkayga ayaan iskaaga sii laabanayaa maasha Allah jikadii saan ayay ku dhamaatay. Hadhowna burkeeni sambuuskeeni markay barafka ay ka dhacaan ayaan wax yar dubanaynaa. Afurkii waaba kana waaba diyaar wax badanna kaama qaadanayso maasha Allah. Wax yar waa dhadhamiyay maraq digaag yar ayaan ku daray intaasoo biyo ayaan ku shubay waan daboolayaa 15 daqiiqo gudaheeda bariiskeeni waa inoo diyaar kadibna asiga ayaa kuleel iska sii ahaanayo digsigu kusii jiraa ilaa laga cunaayo baradhadeeni digaageeni labadaanba waa diyaar dab kale u baahan yihiin wax yar in la tusiyo wax badan uma baahna marka si aysan ugu dhegin ayaan saliid yar ayaan ku daray wax yar oo xawaaji yar oo meel dheerneh dusha ayaan ugu darayaa kadib maasha Allah waaba inoo diyaar doorada ayadana sidoo kale waa diyaar dab kale u baahan tahay in la tusiyo marka dabka aad iyo aad ayaan u gaabinayaa ilaa afurka laga gaarayo waxaa rabaa qandac inay ahaato. Saa u jeedaan weli doorada baraf waaye laakiin dhib ma lahan ovenka ayay ku karaysaa wax dhibaato ah ma lahan. Waan daboolaa ovenka ayaan gashanaynaa insha Allah. Haddana waa kana dharka waan iska soo dhameeyay sambuuska iyo burka ayaan iska sii boogsiinayaa. Insha Allah marka waad mahadsantihiin asxaabay waxaan rajeynayaa maanta inaad ka hesheen vlog aan idinla wadaagay aad iyo aad u mahadsantihiin sida quruxda badan mar walba aad igu xiran tihiin jazakallah khair ayaan idin leeyahay mar walbana hanaga hilmaamin videoga like iyo share iyo comment iyo subscribe inaad noo siisaan ama walaalihiina kale aad ugu faa'iideysaan khayr ayaan idin dhaafay inta kale aan video aan ku kulmeyno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.